gabadhan dukaanka dharka gadayso macaamiisheedu waxay u dalbaysaa shaah. ninkii shaah ayaa shaah keenay wuxuuna bilaabay ninka maskiinka in uu shaah kasoo bilaabo. gabadhan ayaa ku qaylinaysa waxay ku leedahay asiga maan shaah waxaan u dalbay waa in aad soo siisaa wiilkan iyo hooyadiisa. ninkii shaah waday wuxuu bilaabayaa in uu siiyo wiilkan iyo hooyadiisa meesha ayuuna ka tagayaa. gabadhan ayaa ku dhahaysa waa in aad waqtigan aad ku qaadataan shaaha waxaana bilaabaysaa inay soo aado dhanka wiilka maskiinka. waxay ku leedahay maxaa rabtaa adiga waa meesha fadhiya. wiilka waxa uu sheegay inuu baahan yahay dhar. waxay bilaabaysaa dharka faqiirka inay usoo saarto waxaana ku leedahay waa kuwan dooqaada ka baxso. wiilka ayaa si kadis wuxuu ku taabanaya shaarkan meesha yaalo. gabadhan ayaa ku qaylanta maxaad samaynaysaa ayaa ku leedahay shaarka ayay kasoo qaadaysaa waxaana ku leedahay shaarka farahaada wasaqaysan ha ku taaban. shaarkan waa shaar qaali ah mana iibsan karta ayaa ku leedahay. wiilkan ayaa ku dhahay haddii aan dharka iska tijaabsado baan u gadanayaa. waxay ku leedahay dharkan dhar aad gadan karta ma ahan waana iska daysaa. wiilka ayaa dhahay waayahay ayuu ku leeyahay. gabadhan waxay dib ugu soo laabanaysaa wiilkan iyo hooyadiisa. waxay ku leedahay bal ka war shaah macaankiisa. waxay ku leeyihiin shaah aadna siisa maanta aad ayuu u wanaagsan yahay. waxay kale ku leeyihiin waad ku mahadsantay shaah aadna siisay. wuxuuna ku leeyahay aniga maanta shopping ma usoo baxan laakiin dukaankaada mar kale aan imaano ayaan wax kaa iibsan doonaa ayaa ku leeyahay. gabadhii way soo laabanaysaa waxay ku soo laabanaysaa wiilkii maskiinka ahay waxaana ku leedahay dooqaaga muxuu ahay dalabkeen rabtaa. wiilkan wuxuu u sheegay shaarkan iyo shaatigan kale inuu ka helay. wuxuu ku leeyahay lacagtooda waa imisa. gabadhan waxay ku leedahay labadan shaati waa shaatiyaal qaali ah lacagtoodana waa 10 lag ayay ku leedahay. wiilkii isla markii wuxuu bilaabay inuu jeebkiisa lacag ka soo saaro. gabadha ayuuna gacanta ka saaray. gabadha way yaabaysaa. markaas ayay wiilkii xaggiisa soo filinaysaa. waxay ku leedahay iga dhaal noqo hadaad si qaldan ayaan kula hadlay ma ahayn in aan sidaas kula hadlo. wiilkan wuxuu ku leeyahay taasi way dhacdaa inta badan u bixin ayuu ku leeyahay.